waxaan ugu daran hada laga kari laayahay Kenya baa laga kari laayahay bariga horena Kenya ma baan la hadli jirin hatta kuwa dagaalka loo diyaarinay kuma jiri jirin bariga dagaalkii 77 ila galay waxa la jiray horta Ethiopia dhib badan Ethiopia meel iska soo saarno Kenyaatuna waxay dhigi jireen Ethiopia meel iska soo saartaan dhulka NFD anagoon dagaal gelin aynu ku wareejinayna ma dagaal ma galaan kuwa waxay dhigi jireen ma military iyo commandos ma loo diray ciidamada booliska loo diraa booliska xaafadaha jooga dadkii aan booliska aanu diri lahayn waxba aanu dirin maanta leena kari laayahay badeeni iyo dhulkeeni war maxaa rabtiin ma si loo celiyo aynaan maxaan ku mashquulsanahay inaga isku mashquulsan marka waxaas oo dhan waxa la rabaa inta laga baxo in dadka ay hal shinidu halkeeda boqoray ilaa shatay hal boqor la sameeyo xukunka marka hadda waxaan ka hadlaynaa islaamku xukunkiisu muxuu yahay in madaxa la sameeyo imaam hal in la sameeyo waa waajib wixii kale intaas ka baxsan qofkii sameeyay oo taala Sayyid Umar wuxuu dhigi jiray islaamnimo ma jirayso illa inay dadka urursamaan ma ogi la islaam biduuni jamaa umadeena markii la ururay u baahan tahay wala jamaacana ma jirayso biduuni imaara hadii aan maamul loo sameeynin wala imaarata biduuni daa'a hadan qofka hogaanka loo sameeyno warkiisa aan la maqlin ayadana jamaa ma jirayso heesaas yeel haduu yiraahdo midna qofka hogaanka waxa la rabaa qofka hogaanka u yahay inuu haye yiraahdo laakiin hadii la sinmo la yiraahdo maya anama yeelay marka fawdan laga ma baxayo cid wax noqonaysa ma jirto marka ayadoon shakhsi iyo hebel arintu ayna ahayn ka mabda ahaan ka mas'ala ahaan aynu isla fahamno ummadda islaamka ahi in ay hogaan yeelatay waa waajib kitaabkay waajib ku tahay sunnaday waajib ku tahay ijmaacay waajib ku tahay oo laga soo bilaabo xilliga nabigu dawladiisa asaasay hal marna lama arkin mowqicaas oo imaamnimada ah oo banaan oo la yiri sanadkan aan iska dayno imaam yaan samaysanin dadku shacab ha iska ahaadeen xukunka qof uu qaban ma dhicin haduu mid tago mid kale baa bedelay haduu mid tago mid kale baa bedelay taas waxay ku tusaysaa ahmiyada ay leedahay wada jirku iyo in hogaan la yeesho marka meeshan maamuladan aad maqlaysaan hebelow ah likulli qabilatin fiha amirul mu'minin kooda u jooga wa minbarna wayleeyino television ay sameysteen maamulkaas television ma laho hayay idar xageen rabtaa waxay geysaa maxay leeyahay televisionka oo Jubbaland waa kana maanta oo Jubbaland lagu haya hay koonfur galbeed u wareeg koonfur galbeed waa kana asagana minbar waa kana television Puntland aad waa ka likulli qabilatin fiha amirul mu'minin kana uu jooga wa minbar marka amirul mu'minin yaal badan lama rabo waxa la rabaa hal xabal rabaa maxay hal xab hadii la heli waayo wax soconay ma jirto shinida ma ka aqal xunay shinida waxa la boqorad waxa jirta way ka weyn tahay shinida inteeda kale boqorada oo shinida marmara waxa isla dhashay sanad barwaaqada keenaysa laba shinni oo waaweyn oo sifadii boqornimada wadata shinidii markay arkaan labadan isla waaweynay sifadii boqornimada lagu noqon lahaa wadata xeer waxa uu degsan oo Ilaahay uu ku ilhaamiyay labadaas mid kamid ay dilayaan mid ay soo reebanayaan waxay diidayaan labadaas inay joogan haday labadaas joogan ciidankii shinida ahaa ee malabka sameynayay ayaa iskhilaafaya haduu iskhilaafo boqoradana qaar raacaya boqoradana qaar ka raacaya haday taas dhacdana maxaa dhacaya bariga hore waxa la jiray shinni waxa la helaa markay iskhilaafto malabkeeda waxa la helaa shinni malabkeeda waxa la helaa markay iskhilaafto maxaa yeelay madayna iskhilaafin meesheeday ku jireen lama arkaayo tartiibtay malabkay ku fadhineen laakiin koox juq la soo siiyay banaanka loo soo saaray marka banaanka loo soo saaray koox kale laga soo deebixiyay dadkii meesha maray meeshii malabku ku jiray ay shinnidii la soo buriyay ay ku korkeeda ku xoomeen markaas meeshay marmare qof meesha maray wuxuu leeyahay meeshan wallahi malaba ku jira ma ku jira waaba la arkay malabkii marka la jabsana shinnidii masaakiinteed waxa dhan waa la wareegay shinni marka iskhilaafto malabkeeda la helaa Soomaali marka sidaas ay nagu dhacday boqorro badan ay noo dhashay oo Soomaali ah malabkeeni marka وعلى جبسدي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد لهذه الأمة خيرا فحقق الخير في يديه ومن أراد لهذه الأمة شرا فاجعل الدائرة عليه واشغله في نفسه واكفنا من شره يا رب العالمين اللهم يا من ألف بين الشجر والنار ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا يا رب العالمين اللهم إنا نستقدر بقدرتك ونستحمي بحماك
يا من عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره نحن في جوارك فاجرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارفع راية الحق يا رب العالمين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين اللهم حقق آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد لهذه الأمة خيرا فحقق الخير في يديه ومن أراد لهذه الأمة شرا فاجعل الدائرة عليه واشغله في نفسه واكفنا من شره يا رب العالمين اللهم يا من ألف بين الشجر والنار ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا يا رب العالمين اللهم إنا نستقدر بقدرتك ونستحمي بحماك يا من عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره نحن في جوارك فأجرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارفع راية الحق يا رب العالمين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين اللهم حقق آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين iyadoo la ogyahay ahmiyada uu leeyahay barnaamijka bulshada ay ku xiriirto ee social media iyo arrimaha ku saabsan oo xilligan casriga ah noqday aalad runtii aad iyo aad saameyn u leh ayaa waxaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka joogaan aan la wadaagaynaa inaan u furnay page ku furan magacayga oo leeyahay page-ka Sheekh Cabdilxay oo YouTube-ka ah kaas oo la soo gelin doono barnaamijyada aan ugu talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo oo ay ka mid tahay khudbada Jumcada ee isbuuciiba mar baxda ee magaalada Muqdisho masaajidka Umar bin Khadaab ka baxda iyo waxyaabaha kale ee isleenahay baahi ayaa markaas ummaddu ay u qabtaa inaan aan u soo bandhigno waxa kale oo jiri doona su'aalo oo runtii dadku ay aad isu weydiiyaan oo ay soo weydiiyaan inaan fursad u siino Facebook inaan isbuuciiba mar aan ku soo bandhigno mowduucyo markaas aan isleenahay muhiim ay bulshada u yihiin ayagoo wixii su'aalaha ay qabaan ay halkaas ku soo qori doonaan kadibna aan jawaabta usoo dhigi doono page-ka YouTube-ka aan ku leeyahay page-ka Sheekh Cabdilxay marka dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sida aad uga qayb qaadataan wacyigelinta bulshada kolba barnaamijka qiimo leh meelahaas lagu soo bandhigo aad marka aad uga sii qayb qaadataan iyo dareenka runtii wacyiga sareeya aad kaga falcelisaan hadba markii duruufta iyo mowduucyada halkaas ka jira ee la maraayo marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada page-kaas insha Allah taala waxaan rajaynaynaa duruus laga faa'iideysto iyo macluumaad muhiim u ah nolosha dadka isla markaasna diinteena islaamka iyo faafinteedana qayb weyn ka qaadan doona inaad halkaas ka heli doontaan marka saa ula socda waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh